بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan inaan ku qabto talooyin ku aadan macallimiinta dadka waxbara shaqada macallinimadu waxay kamid tahay shaqooyinka lafdhabarta u ah jiritaanka iyo nolosha bulshooyinka caalamka tusaale wax soo saarka iyo jiritaanka iyo maamulka iyo hanaanka iyo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo hal abuurka iyo fikirkaba waxaasoo idil caafimaadka iyo maxaanku oraahdaa ay sheegeen injineeriyadda iyo waxyaabaha la midka ah idil waxa dareemaysaan qayb kasta waxa asaas u ah macallin dadka soo bara inuu jiro anaga Soomaali markaan nahay macallinkan wuxuu ka soo bilowdaa quraanka kariimka macallinkana bara waxaan rabaa marka si guud aniga oo kala qaadin macallin iskuul iyo jaamacad iyo maxaanku oraahdaa ay sheegeen dugsi quraan toona inaan tusaaleeyo dhowr qodob maxaanku oraahdaa ay sheegeen la xiriirta in shaqada macallinimadu marka u dambaysa ay ku soo baxdo ama macallinkaas uu ku soo baxo macallin aad ugu fiican xirfadiisa macallinimo waxa la yiraahdaa shaqada macallinimadu inta badan waa shaqo dadka aan macnaha saxda iyo fahamka saxiixa aan ka haysanin ay aad u dhaliilaan tusaale markii la soo qaato macallimka dadka wax baraya dadku ayagoo fadhi ku dirirada fadhiya waxa laga yaabaa inaad aragtid dad badan oo shaqada macallinka dhaliilaya daliil kale dhinaca kale kama qabaan laakiin waxay istusaaleynayaan inay tahay shaqo aan wax soo saar lahayn shaqo fakhri ah shaqo nolosha dhaqaale la liidato laakiin sida saxda waxay tahay shaqada macallinimadu sidaas maaha qofka gidaarka fadhiya asaga noloshiisu sida u dayacay ee meesha fadhiya un baa dhaliila maahane shaqada macallinimadu sida maaha tusaale shaqada macallinimadu waa shaqo cibaado ah oo qofka niyeystay waajir fara badan kala laabanayo macallinku waa ka waqti fiican yahay dadka kale waayo waqtigiisu idil waxa uu diiradda ku saaraya inuu qof insaana ka dhigo wax macno leh oo heerka saaka ay joogtay heer ka duwan inuu gaarsiiyo macallinka fikraya sidaaba marka macallinku waa ka waqti fiican yahay waana ka dadnimo iyo qiimo fiican yahay dadka kale tusaalooyinka la soo qaadan karo waxay tahay dadku way ku caajis gelinayaan run waaye laakiin waxa ay sheegayaan ma aha wixii asalka ahaa tusaale ahaan waxay ku leeyihiin macallinka qofka macallin noqdaa maxaa macallin laga noqonaa dhaqaale badan ma lahan ama maxaan ku raahdaa isha weligeed shaqada macallinimada lagama taajiro juxa waxa laga sheegay qeysooyinkiisa ay sheekooyinkiisa waxa kamid ah waxa la yiraahdaa dameer ayuu suuqa keensaday sidaaba dameerkeenina gurguriyay ninkii baa dameerka inuu gadaal kala wareego si uu iskaga fiiriyo bal dameerka iyo muuqiisa iyo miisaankiisa dameerkii baa haraatiyay ninkii dameerkii markuu haraatiyay buu hore haddana ka soo maray dameerkii ninkii waa qaniinay wuxuu yiri niyahow inta carooday buu wuxuu yiri war waxaan bahalkan aad soo kaxaysay cid ka iibsanaysa ma laha juxa wuxuu yiri in la iga iibsado ma rabe dhibkiisa in la arkaan suuqa u keenay marka sida sax waxay tahay shaqada macallinimada dhaqaalaha la leeyahay dhaqaale male iyo waa maxaan ku raahdaa lagama taajiro iyo taajirnimo ma ugu soo baxay qof macallinku marka koowaad horto taajirnimo ma ugu soo baxay qofkan macallinka ahi waa qof u soo baxay inuu cibaadeysto tusaale bulshada ayuu anfacayaa macallinku waa geedka tusaale ahaan markii brancheska ay baxayaan macallin taqaana injineerka dhakhtarka sargaalka ciidanka garyaqaanka maxaan ku raahdaa qaranka bulshada u dooda dhaqaalayahanka farsamo yaqaanka waxa nolosha bulshada ku kala tiirsanto dhan geedka ay laamahaasi ka soo baxaan weeyaan sidaaba marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay khayrun naasi anfa'uhum dadka waxa ugu khayr badan midka ugu nacfad badan oo dadka ugu ama khayruhum anfa'uhum khayrukum anfa'uhum linnas waxa idinku ugu khayr badan qofka dadka ugu nacfiga badan ama bulshada ugu nacfiga badan maxaana bulshada ugu waxtar kale oo inta badan bulshada waxtar weeyaan sidoo kale waxa jirta xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam u dhahay ilaahi iyo malaa'iktiisa maxaan ku raahdaa isha kalluunka badda ku jira iyo xitaa quraanjada ku jirta godkeeda yusalluuna ala muallim naas alkhayr waxay ku duceeyaan qofka dadka khayrka bara muallimka marka dhaqaale uma soo bixin waxa uu soo baxay inuu cibaadeysto oo uu qofkaas noqdo kuma basi jira haduu macallinka quraanka yahay tusaale ahaan macallinka quraanka xadiis kale wuxuu tilmaamayaa khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama waxa idinku khayr iyo barwaaqo adduun iyo aakhiraba badan qofka dadka quraanka asagu barta kadibna waxaan ku raahdaa ay sheegeen quraanka dadka bara aamin marka shaqadaada macallin
waxba yaan xoolo male iyo maxaan ku iraadaa ii sheegayna lagaga sheekayna horta aamin shaqadaada xalal quutanimadaada aamin inaad bulshada kale ka waqti fiican tahay markaan kale waxay tahay saacadaha qofka caadiga ah ee aan macalinku ahayn uu dambaabi karo oo uu wax mala yacniya iyo waxyaabaha xun ku mataqaan heli karo inta ugu badan macalinku wuxuu ku jiraa mar uu wax diyaarinayo mar uu wax jeedinayo mar uu tala bixinayo mar maxaan ku iraadaa ii sheeg uu cibaado ku jiro oo waxyaabahaas oo dhan marka cibaado u niyeysanaa sidaaba macalinku waa dadka waa ka waqti fiican yahay ka soo qaad 24 saac qof walba leh 24 saac la wada leeyahay haddii aad ku bays garayso inaad cibaado ku jirto oo aad walaalka yariiska ah ee ardayga ah ee miskiinka ah ee ka aqoonta mataqaana hooseeya aad rabto inaad taada ka daba keento soo kiciso ama dhaafsiiso halkaas waxa weeyaan waa waqtigaaga waa ka waqti fiican dadka kale waqti aad ilaahay ku caabuday si buuxdana aad maxaan ku iraadaa uga ajirsatay ayay maxaan ku iraadaa ku tahay inta badan marka alla tala saaro waa marka koowaad qaada talooyinkan soo socda waxay ka anfacayaan in shaqadaadu noqoto shaqo hufan oo qurux badan talada koowaad ee macalinku siinaya waxa weeyaan waxa lagu keenay arday inaad wax barto noloshiisu waxa ay ka bilaabatay wax walba inay ku cusub yihiin marka adiga lagu keenay tusaale waxa ku cusub ardayga lagu keenayo qoraalka waxa ku cusub fahamka oo wax fahmi laha waxa ku cusub tusaalaha aad jeedinayso waxa ku cusub layliga waxa ku cusub inuu cashirka ku celiyo waxa ku cusub maxaan ku iraadaa inuu dib u akhriyo wixii aad haysay waxa ku cusub inuu ka jawaab celiyo oo wixii uu ka jawaabo qaabka adigu wax u jeedinaysa waa muhiim marka ugu horeyn in aad fahamtid adiga macalinka ah inaad ugu horeyn fahamtid qiimeysid akhrisid nooca ardayga ee aad la kulantay marka koowaad inaad qiimeysid waa ku muhiim taas marka diiradda saar talada labaad oo ku siinaya waxa weeyaan adiga markaad macallim tahay waxaad gacanta ku haysaa ama aad haysaa buug cashir ku qoran yahay tusaale buuggaas cashirku ku qoran yahay waxaad og tahay warqaduhuna ma noola qalinkii lagu qorayna ma noola qadda ku qoran buuggana ma noola nolol waxaa laga sugayaa markaad adiga intaad ardaygaaga u akhriso wixii ay macno sameeyaan oo ay dhadhan yeeshaan oo maxaan ku iraadaa ishag ay halkaas uga soo baxdo maxaan ku iraadaa ma noolihinimadii halkaas uga soo baxayaan oo buuggii iyo wixii ku yaalay hadda waxay noqonayaan wax nool macno leh nool marka kale wax istaagaya noqon maayaan